بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على حبيب الله وخليله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan bilaabaynaa suurad cusub, waa suuratu cabasa. 40 aayadood ay ka kooban tahay. sababtay kusoo degtay suuradan ama sabab nuzuulkeeda waxay culimmadu isku raaceen mufasiriintu inay kusoo degtay saxaabi weynaa oo ka mid ah saxaabada rasuulka oo magaciisa la odhan jiray cabdillaahi bin ummi maktuum. saxaabigani wuxuu ahaa saxaabi indhala ayuu ahaa oo caamiye ah, waxaanu ilmaabtila ahaa oo uu dhalay abtigeed u dhalay khadiija bintu khuwaylid oo ahayd xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam. abtigeed ruma ayaa dhalay saxaabigan dhalay oo ilmaabtilay ahaayeen. saxaabigani wuxuu ka mid ahaa min awali man aslam, dadkii ugu horreeyay islaamay ayuu ka mid ahaa saxaabigan radia allahu tacaala canhu, cabdillahi bin ummi maktuum. wuxuu ahaa saxaabigani mu-adinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, mu-adinkii labaad ee ka adimi jiray masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaa. gaar ahaana salaada subax aadaanka koowaad isagaa adimi jiray. saxaabigan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaga sii tegi jiray magaalada madiina, isagaa wakiil uga ahaa, barisaab ahaan ayuu ugu magacaabnaa. dhowr jeero nabigu dagaalo u baxayna isaguu kaga tago mas-uuliyadda uu kaga sii tegay magaalada mas-uuliyaddeeda iyo maamulkeeda. wuxuu kaloo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhowr jeer u dhiibay uu kaga tegay imaamnimada inuu dadka tukiyo. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu khaliifo uga ahaa imaamnimada. saxaabigan indhaha la ee cabdillahi bin ummi maktuum maalin ka mida maalmaha isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam shir jaraa-id oo aada u culus ku jira oo la shiraya odayaashii waaweyneed ee quraysh, qabiilkii quraysheed iyo reer maka odayaashoodii isagoo la shiraya oo shir jaraa-id kula jira oo rasuulku raba inuu ka dhaadhiciyo islaamnimada. oo raggan ay ka mid ahayeen umaya bintu khalaf iyo alwaliid bin muqiira iyo shayba iyo walaalkii cutba, alcabaas bin cabdilmutalib, camr bin hashim, abu jahal. raggaas buu la shirayay nabiga calayhi salaatu wasalaam. rasuulkuna wuxuu aada ugu han weynaa in hadday islaamaan dad badan, khalqun kathiir, inay soo raaci doonaan dad badan maadaama ay yihiin odayaal dhaqameedkooga ay yihiin iyo salaadiintoodii raggay ka dambeeyaan ay yihiin. marka rasuulku wuxuu isku taxallujinayay inuu islaamnimada ka dhaadhiciyo. markaasaa rasuulku wuxuu ku lahaa hal tarawna fi dalika ba'san, kolba arrin buu uga sheekeynay, miyaad wax dhiba ka qabtaan arrintaas, wax dhibaata miyaad ka qabtaan? mise lahayn may laa naraa ba'san, wax dhibo maa. markaa rasuulku shirkaa jaraa-ide aadka u culus buu ku jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. laakiin rasuulku ma ahayn sida dadkan maanta muslimiinta maamule madaxda sheegta oo dee ciidan iyo barisaab ciidan iyo security iyo cid ilaalinayso shirka jaraa-idnidu albaabada u xidhaya ma ahayn. marka waxaa dhacday saxaabigan cabdillahi bin ummi maktuum ilaa raadaha ka noqda indhaha la ayaa isagoo socda rasuulka u yimi. rasuulkuna uu shirkaa ku jiro odayaasha alla hadlay. markaasaa wuxuu ku yihi yaa rasuul allah arshidnii callimnii mima callamaka allah. dhowr jeer buu weliba ku celceli rasuulkii ilaahayow i tilmaam i hanuuni
oo ibar wixii ilaahay ku baray macnaha aqoonta diintay bar dhowr jeer buu ku celiyay hadalkiibuu ka gooyay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkii odayaasha u waday ayuu ka jiidhay uu ka jaray rasuulku markaa calayhi salaatu wasalaam rasuulku bashar buu ahaa bani aadam rasuulku diiqad baa yaro gashay hadalkiisiina wuu yaro karaahiyeystay iyo hadalkan uu ku celcelinayo ninkana waa nin indhala saxaabigani oo si fiican uma oga dee cidda la joogtay rasuulka waxaa howlu ku jiro ma oga markaa rasuulku umuu jawaabin cabdillahi bin ummi maktuum waabuu ka jeestay hadalkiisiina diiqad buu yaro geliyay waxaanu niyadda ku yaro qabto is yidhi malaha nimankan uu la fadhiyo maaragtay odayaasha waaweyn waxay odhan doonaan waa rasuulka waa ciddan la socota waa masaakiin iyo dad indhala iyo dad taag daran iyo markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabigii waa ka jeestay hadalkiisina wuu ka diiqadooday wejigiina wuu ururiyey markaasaa ilaahay subxaana watacaala min fawqi 7 samaawaat ayaa laga soo canaantay nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna waa kii hore u sheegay oo xadiis saxiixa waa ka yidhi adabanii rabbi fa axsana ta'diibi aniga ilaahay baa edbiyey edbinteedana wuu wanaajiyey ilaahay subxaana watacaala si fiican buu edbiyey marka ilaahay arrintaasu ku canaantay waa lagu canaantay waxaana la yidhi miskiinkaas indhaha la qalbigiisu waa nadiif waana nin maskax furan oo qalbi nadiifa leh oo jecel inuu diinta barto uu islaamnimada uu fahmo oo maaragtay macaasida iyo uskaga uu qalbigiisa ka nadiifiyo waa qof raba laakiin rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi ilaahay subxaana watacaala raggan aad la fadhiday qamaamuurtan waaweyne qoreysheed waa niman maadiyada raacay oo adduunyo daba dhigtay oo adduunyadu qalbigooda ku weyn tahay rajana aan laga qabin inay islaamaan oo kibirku maskaxda ka qabsaday kibir ayaa maskaxda ka qabsaday marka ilaahay wuxuu leeyahay intaad nimankaa isku mashquulinayso oo aanay qasab kugu ahayn inaad hanuuniso waxaa ka fiicneed oo ka habbooneed ninkaa qalbiga fiican ee qalbiga nadiiftaa leh ee raba inuu waxbarto aqoon u koransado inaad isaga usoo jeesato ood waxbarto saasuu ilaahay ku canaantay bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahay wuxuu yihi cabasa markaa nebigaa laga hadlayo bal u fiirsada sida ilaahay u ixtiraamay rasuulka ilaahay wuxuu kula hadlay hadal yacni qof maqan oo kale laga hadlayo si toosa ilaahay uma odhan nebi maxamed oo wejigaad uruurisay ilaahay ma odhan laakiin wuxuu yihi cabasa ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala rasuulku wejiguu uruuriyey markuu cabdillahi bin cabaas u yimi ee uu ku yidhi arshidnii wacallimnii mima callamaka ya rasuul allah markuu sidaa ku yidhi cabasa wejiguu uruuriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu diiqadooday hadalkiisi watawalla dhabankana wuu u jeediyey cabdillahi bin cabaas uu kasii jeeto oo hadalkiisiibuu sii wata waa odayaashii kula hadlayay ilaah wuxuu yihi an jaa-ahu markuu yimi alacma ninkii indhaha la-a saxaabigii indhaha la-a rasuulku cabasa watawalla an jaa-ahu lacma markuu yimi cabdillahi bin ummi maktuum oo ah saxaabigii indhaha la saxaabigina rasuul ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay alacma nin indhala ilaahay magaciisi muu sheegino muu odhan an jaa-ahu cabdillaahi bin ummi maktuum alacma buu yihi waayo ninkan waa nin indhala waxaanu sameeyey horta wax fiican maahayn oo si uu adab bay ahayd adab daro laakiin dee wuxuu ahaa nin indhala oo mu ogeen cid la joogta iyo inuu rasuulku dad waaweyn la fadhiyo o islaamnimo uu howl ku jiro marka ilahay wuxuu leeyay ninkaa indhaha la wamaa yudrika maxaad ka ogtay nabi maxamedow lacalahu yazaka inuu yahay nin raba inuu qalbigiisa dahiro oo qalbigiisu nadiifi oo caqli badan inuu yahay maxaad ka ogtahay ninkan cabdillaahi aw yadakaru ama uu ku waantoobo wixii aada u sheegto fatanfacahu ay wax tarto adikra waanadu ay wax tarto ninkan buu ilaahay leeyahy subxaana watacaala saxaabigan waa nin qalbi nadiifa waa nin caqli badan waanada iyo wacdigaad isaga siiso waxbay u taraysaa aakhiriyo adduunba wuu ku intifaacaya laakiin kuwan aad la fadhido waa niman laga quusto rajo aan lahayn buu ilaahay leeyahy subxaana watacaala oo kibirku maskaxda ka qabsaday markaa saasaa lagu canaantay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yihi amaa man istaqnaa laakiin kuwan iyagu kibray u haystay inay ilaahay ka kaaftoomeen oo hantida iyo awoodda istabay ayaa ilaahay wuxuu yihi fa anta lahu tasaddaa iyagaad fa anta lahu tasaddaa saxaabigana waad ka jeesatay
iyagaana dujeysatay buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wamaa calayka nebi maxamedo korkaaga ma aha anlaa yazakkaa inaad nimankan hanuuniso ood isku taxallujiso dee waajibkuguma aha buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waajibkuguma aha adiga xaqa unu sheeg laakiin inaad isku taxallujiso ood isku mashquuliso waajibkuguma aha ilahay wuxu uhi wa amaa man jaa-aka kii isagu kuu yimi waa cabdillahi bin ummi maktuum yascaa isagoo weliba isku taxallujinaya inuu islaamnimada barto kii isagu kuu yimi wa huwa yakhshaa oo ilaahayna ka cabsanaya oo raba inuu ilaahay ka cabsado oo diinta uu barto oo aqoonta uu barto oo aakhiradiisa uu tudho fa anta adigu nabi maxamedow canhu isaga talahaa waad ka mashquulshay isaga waxaanad kaga mashquulshay nimanka odayaasha kii isagu isbiday inuu hanti iyo awood leeyahayna waad ku mashquulsho waad usii jeysatay buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala oo iyagii baad ku mashquulsan tahay weliba nimankaa dee rajo lagama qabo buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala islaamka waxaa caawinaya oo islaamka waxu taraya waa kaa indhahalla waayo waa nin qalbi nadiifa leh oo caqli badan wey oo raba inuu ilaahay subxaana wa tacaala raali geliyo wa huwa yakhsha oo ilaahay ka cabsado fa anta canhu talaha isaga waad ka jeysatay waad ka mashquushay waxaa la sheegaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markastuu cabdillahi bin ummi maktuum kasoo horbaxo kaana yubsitu ridaa'ahu lahu go-iisuu u gogli jiray dhulka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu arkaba cabdillahi bin dhulka intuu u goglo ayaa wuxuu ka odhan jiray marxaban biman caatabanii fiihi rabbi soo dhowow ninkii ilaahay igu canaantayo ninkii rabbiga igu canaantayo soo dhowow hal laka min xaaja saasuu weydiin jiray rasuulku maxaan kuu qabtaa maxaan kuu sameeya cabdillahi bin ummi maktuuba waxmaad weydiinaysaa su-aal miyaad qabtaa ixtiraam macnaa qadari ninkii laygu canaantayo ee rabbiga igu canaanto ilahay wuxu uhi subxaana wa tacaala kalaa nebi maxamedow inahaa aayadahan qur-aanku tadkiratun waa waano waa wax ku qaadasho aayadahan qur-aankaan kugu dul akhriyayna waa wax ku qaadasho iyo waano waxay waano u tahay qof kasta oo ilaahay ka cabsanayo oo raba inuu ilaahay ka cabsado xitaa ha indha la-aado qof kastoo raba inuu wax ku waantoobo oo doonitaankiisa islaamnimada ku qaatay laakiin qofka kibray ee istakhnaa isbiday hanti iyo maal iyo awood isbiday oo kibray kaa isaga qur-aanka waxba uma taraysa buu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala aayadahan waxay wax u tarayaan faman shaaa dakara qofkii raba inuu ku waantoodo ee isagu ikhtiyaarkiisa ku qaatay islaamnimada ilahay wuxuu yihi qur-aanku fii suxufin wuxuu ku qorayay suxuf waa looxul maxfuudka waraaquu ku qoranyay iyo feylal mukaramatin karaamaysan oo darajo sare saaran meel sare saaran oo dahiran oo la ilaaliyey marfuucatin oo sareeya feelashaasi buu ilaahay leeyahy waa feelal sareeya waa looxul maxfuudku u sareeya ilaahay agtiisaanu yaala waanu xifdisan yahay ciidamo daalacan karto ciidamo bedeli karto mutaharatin waa dahirayn buu ilahay yihi subxaana wa tacaala mukaramatin waanay karaamaysan yihiin marfuucatin way sareeyaan oo ilaahay agtiisa u yaala looxul maxfuudku halkaasaanu qur-aanku ku qoray mutaharatin waana daahir nadiif biaydi waxay ku jiraan buu ilahay yihi subxaana wa tacaala oo gacmaha ku haya safaratin malaa'ig safara ah malaa'ig u dhexaysa ilaahay subxaana wa tacaala rususha oo waxyiga soo qaata sida malaku jibriil oo kale kiraamin oo karaamo badan oo khayr badan bararatin oo ilaahay adeecda sida ilaahay aayado kale ku sheegay laa yacsuuna maa amara allah wayafcaluuna maa yu'maruun wixii ilaahay amray ma caasiyaan wuxuu ilaahay amrayna way sameeyaan marka malaa'igtaasaa gacmaha ku haysa buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala oo xifdida oo ilaalisa qur-aanka kariimka qur-aankuna halkaasuu ilaahay ku qoranyay buu leeyahy subxaana wa tacaala lowxul maxfuudka ayuu ku qoranyay fii suxufin mukarama waa lowxul maxfuudka suxuf feelashaas iyo waraaqaha lowxul maxfuudka ayay ku qoran yihiin qur-aanka kariimka oo la karaameeyey marfuucatin mutahara oo meel sare yaala ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala oo dahiran biaydi safaran gacmaha malaa'igta safarada ah ee safiirada ah ee ilaahay waxyiga u soo dhiibo ayay gacantooda ku jiraan lowxul maxfuudka oo ilaalinaya oo ilaahay u xilsaara kiraamin barar malaa'igtu ilaahay ammaanaya subxaana wa tacala waa malaa'ig kiraam ah oo karaamo badan oo ilaahay adeeca subxaana wa tacaala oon ilaahay ku caasiyin wuxuu ilaahay amro wallahu subxaana wa tacaala aclam waaxkam wabillahi tacaala tawfiiq